بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waan salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta oo kamid ah ayaamaha ugu khayrka badan leh caalamul islaam, meel kasta uu joogo waa laga ciidayaa. waa ciid al-adha. marka magaalada Boorama runtii ama gobolka Awdal guud ahaan nabad baa laga ciidayaa. waxaan ku salaamayaa dadka reer Awdal iyo dhammaan dadka reer Somaliland iyo maxay ummadda islaamka oo meel kasta joogaan. ciid mubaarak, kullu caam wa antum bil khair. inta markaas sidaaf waxa weeyaan gobolka Awdal guud ahaan waxa laga ciidayaa nabad. dhammaantood degmooyinka waxa loo soo sheegay in ay caafimaad lagu ciidayo, dadku aad u damaashaadayaan iyagoo farxad aad weyn ay ka muuqato. laysa siyaaranayo xoolo, wixii cid walba cidda kale ku dhaanta xoolo la bixinayo, la adxaysanayo. magaalada Boorama oo saaka maxay hayday aroortii u baxay oo kusoo tukaday anagiyo hayn wasiira oo Somaliland ka socota masaajidka Sheekh Maxamed Saaweer. isagana waxa weeyaan aad iyo aad ba magaalada damaashaad iyo ciid looga ciidayaa. saacadii kadib waxaan kusoo qaybinay xoolo fara badan baa magaalada la keenay. ilaahay khayr ha siiyo. khayriyaadyo badan Amoud Foundation baa ka mid ah. waxaa ka mid ah association agency kale oo la yiraahdo American Relief Agency of Horn of Africa oo iyaduna xoolo qaybinaysa maanta. dhammaan dadweynuhu farxad bay ku ciidayaan. xoolaha badan baa loo qaybiyey kooxaha maaragtay meelaha ay danyarta ah, agoomaha, isbitaalada, ciidamada booliska, jeelasha, dhulkaasoo dhan runtii xoolo aad u tiro badan ayaa la geeyey goob walba. waan soo maray meelahaan soo maray oo ka mid ah isbitaalka iyo ciidanka booliska iyo meelo fara badan oo kale. runtii xoolahaasi baa maanta meel walba ku qalaa. dadku way faraxsan yihiin maanta. marka waa maalin ciid ah. alxamdulilah. ilaahay waxaan ka rajeynayaa in sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo iyo maxay ahayday nimco badan aynu ku gaadhno. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.